السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أو wanaagsan daawadayaal meel kasta iyo saacad walba oo joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena arrimaha bulshada oo naga barateen toddobaadkiiba mar inaan idinka soo gudbino TV-ga qaranka xaruntiisa magaalada London. barnaamijka arrimaha bulshada daawadayaal mar walba wixii xiisaha leh ama waxay dadweynuhu xiiseynayaan ayaan ku soo qaadanaa. maanta mowduucan kaga hadlayno waxa weeyaan social network iyo faa'iidada uu leeyahay iyo waxa bulshadeena ku soo kordhiyay wax walba sidaan ognahay markuu ku soo kordho bulsho ama adduunkaba ku soo kordho khasaare iyo faa'iido labadaba uu leeyahay inaga ahaan bulshadeena muxuu ku soo kordhiyay khasaare intee la eg faa'iido intee la eg maxaa laga faa'iiday maxay dadku kale yihiin waxa naga la qayb qaadanaya dhalinyaro kamid ah ururka Somaliland Youth Network oo dhinacayga fadhiya Axmed Aadan wax bin kamid ah waliba xubnaha ugu firfircoon ururka Somaliland Youth Network. Axmed ahlan wa sahlan aad baan ku samayn furqaan waxa kale oo barnaamijka naga la qayb qaadanaysa Suleekha Cali Aadan oo iyaduna kamid ah ururka Somaliland Youth Network. ahlan wa sahlan Suleekha. ahlan walaalo soo dhaw barnaamijka furqaan aad bad mahadsantahay walaalo waan dhawahay sidaan idin sheegay waxaan barnaamijka kaga soo ku qaadanaynaa waxa weeyaan social network hadan ku soo horeeya Axmed xagaaga maxaad leedahay social network dadweynaheena uu ku soo kordhiyay maxaa la taaban karaa oo oran karna waxa uu ku soo kordhiyay bulshada horta marka hore waan islaamaya furqan aadan ku salaamay marka waad adiga runtii social network amba xiriirka waxa la yiraahdo isku xirka bulshadu waxaan malayaa inuu intii 2003 uu ahaa wixii ka dambeeyay wuxuu doona wahaade SMS ka duu horeeyay aduu ha kii ugu horeeyay dadka isticmaali jireen runtii waxa laga yaabaa 2007 wixii ka soo bilaabmay ayuu Facebook na soo baxay dadkuna imika waxay ku badayeen isticmaalkiisa waa Facebook-ka dadka waliba wadankii jooga khaasaan runtii wax badan waa la oran karaa oo faa'iido khasaaraba leh laakiin runtii intaan hore waragelin laakiin wax yar man ku taabsan la dadku wada markii hore baahi fara badan ay dadku isu qabeen baa jiray oo runtii ahayd dadka wadanka joogay iyo dadka Ingiriiska jooga meel kastuu joogo uu dadkaagu joogaan aad ugu baahnaan jirtaa ugu xidhiidhid waxaad moodaa imika inay waxiiba gaabteen oo runtii qofkii hadduu ku baahan yahay farin yar buu ku soo diraya haddii Facebook noqotay iyo haddii WhatsApp noqotay iyo wixii doonaba noqoto way badan yihiin iyo Instagram haddii noqoto waxaan malayn Instagram kuwa soo baraysa guya waa family-kii arkay asaasan imika xaalkaygu maraya weeyaan bal malaya laakiin dadku aad waxay u isticmaalaan wadanka gudihiisa iyo dibadiisa runtii qota wadankii waan ku yartaabsan lahayo Facebook aad loo jecel yahay waxaad moodaa in dadku ku oranayaan hebel baan maanta arkay oo wadankii joogo ku xiisayo war hebel baan maanta arkay kale ay waxaan moodaa inuu isku xidh horta sameeyay dadka isku soo dhaweeyay dadka iska warhayn sameynayaan runtii taasaan horta marka hore ku oranaya ana uu soo noqon doona Axmed Suleekha marka kale ku soo dhawo barnaamijka arrimaha bulshada ana sidaan ognahay Suleekha Facebook weegan hadda soo dhaafnay ayuu 10 jirsaday 2004 ahayd markii la aasaasay weegii hore ayuu 10 sano ayuu buuxsantay oo loo dabaaldegay maxaad is leedahay inaga bulsho ahaan way nagu soo kordhiyay walaalo sida uu Axmed sheegay horta wax badan buu soo kordhiyay sideedana waa mindi laba af lahood hadba saad u isticmaashidin weeyaan wuxuu soo kordhiyay dad yani saasoo kala fogaaday ama wadan kale fog kala nool ayaa maxaa sheega iskala xiriiri karaa oo iskala xiriira waxa jirta anigu kulli dadka Facebook la saaxiibka baan kamid ahaa waxa jirta adigoo shaqadaadii wata ama waxbarashadaadii ku jira ayaa maxaa sheegay mobilkaaga wad ka galisaayo qof walba aad ogaanaysaa yani dadkaaga waxay ku sugan yihiin ta kale waxa weeyaan wax kasto maxaa sheegay haday waxbarasho tahay ama maxaa sheegay wixii aad waxyaalo badan aad u baahnayd oo kale wala soo galinay halkaas kala socota marka waxaan leeyahay horta wax badan oo faa'iido ah soo kordhiyay wixii kale maxaa sheegay qof walbana waa soo isticmaala sida ikhtiyaarkay ku xirantaa Axmed hadan ninkaan ku soo noqdo social network marka la yiraahdo ma Facebook kaliya haba loogu badnaado isticmaalkiisa waxyaabo badan oo kala jira waxa jira WhatsApp waxa jira Fiber waxa jira Tango waxa jira Instagram waxa jira dema soo koobi karno waxa soo dhani sidee bulshadeenu ula dhilgarayn kartaa maadaama nahay dad inteena badan waxay nahay Soomaalidu ama Somaliland baan iraahday dadka Soomaali ku hadlo dhanba dad waxaan nahay inta badan aan waxba qorin laakiin hadal wax ku kala gudbista laakiin hadda system-kan cusub qoraal buu isu bedelay sidee dadkeenu ula dhaqmi karaan runtii horta mid baan ku sheegayaa marka hore la sameeyay waxa loogu talagalay dad wax bartay markay si horaba
samaynta markii loogu talagalay dad jaamacad dhiganayeen baba laga bilaabay saad ku maqashay malay Facebook warkiisa dadkuna waa laba kala yihiin inna wax bay qortaa way akhridaa inna wax ma qorto waxaad moodaa intan dambana dadka inay ku yar yihiin dadka wax qoraa because waxaad arkaysaa iminka dadka af Soomaaliga xoog u qora inay wadanka u badan yihiin xitaa dadkeenan wadanka Ingiriiska la jooga ciyalka Ingiriiska dhigta maxay iskuuladu af Soomaaliga ku akhriyaa way qoraan waxa dadka u sahlay inay isticmaalaan waa afkooda Soomaaliga social network markaan isticmaalana haddaan iminka ka hadlo kale Instagram-ka waa sawir isagu kaas waa meel oo deeq sawir unbuu qofku soo gelinayaa Twitter-kan waxaa loogu talagalay dee qof fabulous oo famous iyo celebrity-ga inaad hebel baa soo follow gareeyaan annagu ku follow gareynaya intaas weeyaan iyo affirmation soo gudbinay sidoo inta ku ogol yahayba waa 250 kelmadood in ka badan hadaa qortid waa masaxsa kuma siinay Facebook-na isagu waa unlimited oo qofku inuu iska dhex tibaaxo ayuu loogu talagalay hase haatee dadkii isticmaalaya labaade mid uu iska soo dhacay midna cilmigeyga uu leeyahay moogta waa dadweyntaasoo lagu dhex tuuro ninkii dabaasha garanay baa ka baxaya kii kale loo dhex dabaalanaya ma fahantay dadkuna isku mid ma hadda iminka deela islaamiga baad arkaysaa baa iyagoo dul fadhiyo yar aqraacaya baalka ma fahantay marka waa iska hawla badan yahay laakiin dadku waxaan u fududeeyay aan ku oranayo kaliya taa waa luqadda af Soomaaliga maadaama dadkoodu uu la dhil gareynayaan dad ajaanib la dhil gareynayeen u sahlanaatay hebel sawirkiisa arkaya xitaa hadduu khalad qoro ma sha Allah khalad tan qoro idima eegayso waa la dhaafaya mugti marka waxa uu dareen gaar ah oo la siinayo ayaan jirin oo loo fiirsanayn taas oo saashay صح ما هو سنقول دونا عود مهتمتها أحمد سلاخة wax kasta oo adduunka yimaado khasaare faa'iido leeyahay inaga khasaarihiisa soo imaan doona maxaad leedahay faa'iido ayuu leeyahay Facebook ama social network guud ahaanba والله ولا لو وصلنا شغلنا هاد وصلوا استماشيدون يعني فائدة وليه هاي ما أوران كنا بقول كم بقول قصارو كان بين فيسبوك نيدا يعني واحد كله الاستعمال هي برضو وكان كله إن فائدة وليه ولا لا فائدة بدن باشر تم حشة جاي وده كله حديدي كرتي ده سيدا وحبر شوين كيا كله وصلنا صار شغلنا يا مركانو وحنو ملاينا إنه فائدة هرت سوكر ليه مركا وحيكون حرام تقف قصو استعمالهم إن واحد سرع عرور يرير Facebook sidaan ognahay wixii 18 ka yar lama ogolo inay marka hore furtaan caruur yar yar oo daaweyn tay sheegtaan markay furanayaan isticmaalaya jiro marka xataa dadka la chat gareynayna ma la hadlayaan sida qof weyn ula hadla sax kuwaasi sidoo u saameynaya wallahi wuu saameynaya walaalo yani de waxan qaalada iyagu markay sameeysanayeen waxay ugu tala galeen age bi qofka ugu tala galeen yani daa uu ku sameysto marka iyagu beenta isticmaalaya horta قصارها محاشة لقى بحرك لقى فائدة كواسة كميدا إن وي أكتف تقرين سا يعني علمه يراي محاشة كان حلقي سجارين أي أدرك سايو إن ده يعني سماين يا فيسبوك يكوشرا أو ديتيلون الله ينقشنا يا وقصاره كنا كميدا وحشرا ركبة شرا تمر سكديجيا تمر بس كديجيان وحيسوق لنا يعني محاشة جاي سورة وناكسنين عيال يريرو iska dhigay dad waaweyn oo yani sidii dadka waaweyn oo dhaqmaya aad qasaaro badan buu ayu Facebook-ani dhinaca hadii laga eegana uu maxaa sheegay bulshada ku soo kordhiyay Ahmed maxaa leedahay khasaaro ku soo kordhiyay inna waxaan nahay dad dhaqan iyo diin leh hortaniyo dadada uu nagu soo kordhiyay dhaqankeena iyo diinteena ma dhaawici karta maxay tahay hortaniyo ilaahay subhanahu wa ta'ala mar kasto wax sameeyay lama nuu sameeyay moogta mar haduu faa'iido taala khasaarihna way taala horta walaashay wax ka dhawaajisay ciyaalka waa su'aasha ciyaalka horta niyo aad male waa ilmo yar wixii arkay buu raacaya ma faantay dhaliishana waalidkaas kale waayo waalidku ilmihiisa inuu saaxiib la noqdo ayaa muhiim ah oo wuxuu sameynayo iyo wixii uu gudayaba ogaado waayo ilmihii adoon ka siisiinano cabsi ka qabin ayaad ilmihii ka dhaadhicin kartaa waxaan inuu khalad yahay moogtay hadduu doonayo inuu isticmaalana aad oranaysaa ku qor age-kaagi dhabtaa awood kaa diido oo qofku markuu arko qofkii adalkaaga ula sheekaysiinaya uu ka boodaya iska dhiilid garaynaya una agsad garaynaya qofka soo adid gareeyay marka taladu waalidka iyo ilmaha u dhaxaysa waayo xiriirkuna wuxuu ku wanaagsan yahay adiga iyo ilmahaaga inaad marka saysaysteen ta kala dhibaatada ugu badan ee la sheega waa ragga waxaad arkaysaa website buu nin baa sameynaya magac dumar sameysanaya sawir dumar buu gelinaya
qof dumara baad mooday oo qofkii dumarka baa kugu jira saaxiibtinimadii link baa lagu soo sameynayaa maxay ahayd website linkigii baa lasoo dhigayaa linkigii waa wax xun wadiyaaba saxsan soo war qofkan dumarka ee waxaan soo dhigtay waa maxay aqligaagu markaa kuma siinayo gabar Soomaaliyeed oo muslimaad ah waxaan soo dhigaysa meesha ma fahanti dadkan waxaan kala talinayn taas way waxay sameynayaan adigu ma jecli sawirka walaashayn ma la soo dhigo iyo hooyada iyo marka dadkan dad bila dhasheen oo markii waxa arkaan ka naxaya ka muradalaacaya marka in la ka fiirsadaan iyaguna ay joojiyaan ayaa fiican wayde dadkuna waa labada aan ku sheegayo hadii faa'iidadiisa la eegana waad arkaysaa iyo dadku businessyada ku xasiisanayaan educationka ku jirta diinta ku jirta ila culimada arkaysaa oo xadiiska soo dhilinaysa moogtay waxaan xasuustaa sheekh jooga Canada ayaa habeenkii Happy New York soo galiyay video uu leeyahay caawil lama dabaaldagayo dad muslimaan wacyi gelin ku soo galay runtii waa arkaysaa markasta moogtay sheekh culimaduna waxay sameysay effort badan bay gelisay in ay yakuna xaqooga dadaal ka soo sameeyeen bulshada xaqa kala soo xiriir maadaama bulshada xaqan u badan tahay wixii ilaa bal xaqan isku eego dadka ka wacyi geliyada taasina waa waxyaabaha la taabsan karo ayada ka argaysaa wax kastoo u baahnaatid page bay leeyihiin ma hadda jaamacad doonaysid inaad eegtid page-kayga tagi kartaa hadda doonaysid inaad adigu takhasus samaysid page buu leeyahay ugu tagaysaa wax aliyo waxaad ka helin male wax kasta way ka fikireen way sameeyeen marka dadka waxaan leeyahay inta fiican ka qaato bal intan kale naga ilaaliya de sideed page mid kasta waxaad tiri page buu leeyahay dhanka fiican iyo dhanka kalaba waxaa jira pages diinta sida hadda noo sheegtay waxaa jira pages wax laga barto pages kale arrimaha bulshada wuxuu siyaadinaya pages kan dadka khaldan ma sameysteen ay magacyada khaldan ama sawirada khaladka ay soo gelinayaan aan shaqa ka hor imaanayna way jiraan labada markaynu isgarab dhigno keebad is leedahay faan buu leeyahay ama wuxuu haystaa shacbiyad badan taageero badan runtii waxaad moodaa bulshadu waa inay dhinac khaldan socoto ma ogtahay waayo waxaad arkaysaa link baa la soo geliyay gabadh qurux badan oo meeshii subxaanahu wa ta'aala waa iska garanaysaa ayuu qofkii wuxuu isleeyahay bal eeg uu iska clean garanay aqoon ma leh laakiin markuu clean gareeyo isagoo like siinin wuxuu u sheegayaa dadka kale asxaabtiisa markii soo ka dhigay maxay heeday public buu ka dhigay wuxuu ka dhigay in uu markuu wax taabsado dadka kale war arkaan waayo ninka sameeyay wuxuu ugu tala galay su'aasha ugu horeysa lagu weydiin public baa rabtaa private baa rabtaa bise only friend kaagu kaliyaata bise friend to friend u koornaya marka adigu taad ka dhigatid weeyaan hebel wuxuu taabsado waxa ku leeyahay xitaa adiga waxa barsanaya private ka ku ah khaas ahaan ku ah qof haduu siyaarto uu leeyahay hebel baa eegay baa lagu leeyahay page-kaaga maanta marka dadkuna ka fiirsadaan hadii ay ka fiirsadaan ay ogaadaan waa la yaraanaysaa maalin baa waxa aniga nafteedana waxa igu dhacday qof baa soo geliyay link aniguna kamaan fikirinay waan ka yar cadhado waxaan ku warniyo waxaan ka saar meesho Ilaahay ka yaab anigii baa soo dhigay baalkii baan anigii isku beddelay moogtay dadkii baa anigii la yaabay waraha dhamaad maxaa u qaatay soo digna adigii ku jiray ma ha sheekadii saan warniyo nin baan kamaan u qoray bartaan ka masaxay marka wixiyaan dadku ka fiirsadaan waxay sameynayaan markaas kulli faanku waxa soo badan yahay bulshada waxaad moodaa rag iyo dumarba wixii xun lagu rasocdo noocda ablaagu musleeya moogtay hadii xumaan ka ay eeg masalansa marka taas fidnada keenaysa moogtay taas oo noqotay inuu noqdo faan fadlan ku yaalo Suleekha waxa jirta dad magacyada dadka isticmaalo kale hadda magacaaga kale Suleekha ay qof kale ku furan karaa dad aad garanaysid buu la hadlayaa laga yaabaa in wax khalad ah adiga aan ka suurtoobin ama aad sameeyeen in qofkaasi sameeyo dadkiina ay ku haystaan in adiga tahay sidaad u aragtaa taas horta furqaan aniga igaasay bay saameysay way ku dhacdayba hay waxa jiray sawir baa wuxuu saarnaa profile-kayga qof baa qaatay marka maan xidhan oo yani marka maan aqoon sida loo xidho uu share garaystay profile-kiisa buu soo dhigtay wuxuu sameeyay sawirkayga profile-ka yaala ayuu comment ka bixiyay marka aniga ayaa waxaan sawirkan goormad ka bixisay aad comment ka bixiso yani marka waa qof magac kale leh oo yani daanan anigiba ma aha meel kale uu ka yimid marka waxaa jira dad sawirada iska qaadanayaan way soo dhiganayaan waxay ku darayaan yani meelo ma aragtay khaldan de wanaagsaneen oo qofkii de kama raali ah waxaa jira dad badan aan ka raali ahayn qofna ma jeclayna de inuu qof sawirkiisa inta qaadatid aad meel xun geysid marka waxaa jira wallahi waxyaalo badan way ku badan tahay Facebook aad bay ugu badan tahay iminka maxaa sheegay way ku soo bateen oo
waxaan u malaynayaa adigu last year-kii hore tagay aad buu ugu soo batay waxaan sida ay tahay haddana intaa waa la wacdiyaa dadka waxaa la leeyahay ilaahay ka boqo maxaan sheegaa waxaan iska daaya wax wanaagsan maaha dhalinyaro yarar baad arkaysaa maasha allah dee yacni ay say wax u wacdiyanayaan odhanayaan waxani wax wanaagsan maaha waxa wanaagsan ha laga raaco ilaahay ha laga boqo sida ay tahay haddana qaar badan baa jiro dee wax ku qaadanaya qaarna waa inay waxba ku qaadanayn oo still dee ay u caddahay inay maxaan sheegaa wixii xumaantii sii wada waxaa jira qoysas gabdho xaas ah ama inamo xaas leh oo facebooka dartii ay qoysaskooda ku burbureen ama khilaaf badan kusoo dhex galay taa iyada weligaa ma ka war heshay asxaabtaada ma ku dhacday ma naga siin kartaa fikrad horta walaalo taas horta waxay ku dhacday waan maqlay laakiin weli way dhimantay inaan arko mana doonayo insha allah inaan arko ilaahayba nama tuso dee walaalo wixii xun axmed aduu taa ma la kulantay qoysas isku facebook waxaa jira barnaamij tv-gan ka baxay oo sheekh saciid sheekha qur-aanka barnaamijka taswiirka halkan kasii daaya sheekh wanaagsan ah oo sheekh saciid barnaamij uu sii daayo facebook oo ka sameeyay barnaamijkaasi wuxuu ka hadlayay dhibaataduu leeyahay khasaaraduu leeyahay iyo diinteennu waxay ka qabtaba dad badan oo waxaa jira isula yimid oo yidhi facebook isku haystay qoysas ah iyo qaar inay ku kala tagaanba gaadhay axmed adigu fikrad intee leeg baad ka qabtaa qoysaska dhibaatada uu geystay facebook horta runtii waxaan u maleeyaa waxani waa kalsooni daraan maleeyaa labada qof markii hore malaa dee xiriirkooga ama daciif ah baan sidii runtii facebookan qof xaas kale baba horta inay ku badnaataa waa baskeen mashaakil waa daniyayga kala badanba ninkun inuu ku mashquulaabo waa kasii daran tahay hase haatee dadkii haddana dumarkii maadaama guri u badan yihiin markasta u badan yihiin dhibkun wuxuu ka yimaadaa xagga ragga oo markuu arko iyadoo iskaga jirta facebookii ayaa laga yaabaa inuu magac khaldan intuu samaysto ayuu qofkii la lingaraynayaa moogtay qof salaamu calaykum hade qofkii oo salaamu calaykum ku yidhina وعليكم السلام بدر رنا يساعدوك يوم أورن موسيد محيا ذي قفك سلامي وده وحبي يسكو مو بتدو ده سلا ده كيبا مش كتيره واسكيل على اللي موقتها ده واديكا قراعي وكورة ما ورولا قوابا بطري بدأ أنا ناقتن مركضن بونها والله فين كي يقوليري مركضن كوا هكذا سكيم أنا يا موقتها بيا ده سمين يسمى موقت ده نينك رجوا ناقور حبنا صاغ شينا وده يرمر ما يعيش ليهم بل يردم عنده يرجع بدونوش ليه يرجع موقتها markaasuu xagaa kasii daynaya laakiin waxaan malayaa dee waxaa siinayna horta wax weyn hayne ee wax madadaale reer wax lagu dumiyana maahe qoysasku inay xiriirkooga taa ka weynaataa ta qurux badan ma yani taa hadda aad ka dhawaajisay intuu isaga laftiisu ninkii xaaska lahayd reerka mas-uulka ka ahaa intuu magac kala samaysto uu inantii la hadlayo xaaskiisii ahayd uu qof kale u sheegani taa lafteedu miyaan khiyaano ahayn runtii walahi dee waaba kuu sheegayo meeshan markuu yimaado bahalkan lagu yiraahdo shaydaanka wax kasta waa sameeyaan raggu moogtahay ta kalena dee koley waxaa ku dhaliyay ayuunbuu qabaa intuu facebook samaysiri haddana iyada la xiriir uu siri ayaa keenay moogtahay marka in labada dhinacba eegaan iyadoo inaystiraado koley waa lagu qabaaye laakiin runtii badanka dadka badankooguna waxay kala haystaan baasweedhadaaba la isku dhiibaya imiko baasweerkii way haysaabada isna baasweerkaygi waa haya hase haatee iyadoo la haysto ayaa haddana laba akoon oo kale la sii kala leeyahay jabku waa kaas moogtay oo ninna islaayin waa balde personal maxaa la kala qarsanaya meesha yaala waaba la isqabaabe marka labada qof ee isqabaa in ay dawaan sheekadii aan ku sheegay maalintii waxaan malayaa Somaliland TV bay ka baxdaabe intii la 25 iska dhigtay in meesha markii tagtana kotan noqoto lacagtina waa cunay de ma yana xatir lacagtaydu cuntay meena gursanaysidee wuxuu yiri neero 25 jira ayaa hayde waxa keenay sheekada facebookna xiriirkaas ka xisaabeyso de ma imika wala isku gursaday inta dambe way badan tahay ba walibana xagan iska Danevian ka ba ku badan bad bariyahan dambe oo aad iyo aad la iska gursadaa ma fahamtay waxa wada arkaysaa hebel oo hore warnan xagaastan ka bartay waan yar gaaray iska Danevianki amba taas sheekadu waxa gaas ma fahamtay wax soo kordhay ma wax ma badeeday labada qof hadii xalaal isku guursadeen ba okay xiriirka facebook ka samaysmaya ama social network kale nooc doonaba ha ahaadee inta in la eg bujiri karaa waad isleedahay because qof aad arkin oo just fariin aad ku wada hadashay ama sawirkan aad aragtay uu laga yaabaa inuu noqdo sawir 10 sano ka hor uu galay sideed u aragtaa taayada kulli waa dhalanteed baa ma arkaa anigu waxaan ugu arkaa qof aan weliga arkin inaad maqlayso u jeclaan kartaa babad arkin be Romeo Juliet ba waa sidee warka shay dadku reality waa bas arkeen baa weynas alfanime
laakiin dadku inay is arkaan ala war hadlo oo dal wixii la diid kareeyo hadda haasawara gabadhi waan arka hadda text message kan baa rawaad keenay hay hani un baad leedahay moogta iyadoo waa soo jawaabaysaa un ma fahamtay markaana sheekada waaba xiisa badan male misan baa koonay qofkan aan ku hayaa maamana arkintay kowde warniyo xaq baa arkayba warniyo ma madhay waa kulay waan qaban doonaa waxa gal markay kan qadu waan soo helay kulay moogta marka waxyaabo soo khalad Suleekha sheekadan waxaan u leeyahay xiisa badan tahay sidaad aragtaa xiriirka Facebook ka sameysmay ee fariintu ay abuurtay ilaa labadii qof isla joogaan والله أنا وكم قناعسني تاس وايو قفك وحا كفي عنا فيس تو فيس وأركتد قفي عن محاشة قاعد ودن كلك هاتشوا وعد فيسبوك كبرتي ما أمني كرتيد يعني وحا شرتها لقى يا بينو أديك محاشة قاعدين عكالها الصعدو دين إحنا نقف كلك الصعدو ما كان جاي لما هينو محاشة قاعد وحنا نكسن كردينيو حرير ديرنا وسي كردينيو هذي محاشة قاعد حرير كانوا يعني قفك عاد مثلا سكبرتين فيسبوك وحابط سميسين بوابد مستقبل بابد أترهن آيات رهن ووضع سميسين لنا مستقبل كواد وضع سميسين ومالين ما إنه وحسي داراني هاي يعني قف كان أول بواحد كبرت سي فضود نوكاga بحا marka anu taako ma qanacsanin dadka waxaan ka wacyi gelin lahaa in iska daayaan yani maxaa sheegaa dadkan Facebook ka baranay hadana ay maxaa sheegay ay rumaysanayaan way kala duwan tahay qof aad isku magaalo joogtaan ama isku wadan joogtaan ama fariin isku bartaa ama telefoon isku bartaa aadi way kala duwan tahay taas iyo qof wadan kala jooga ama qaarad kala jooga oo safar u gashay oo tacab badan iyo lacag iyo wax badan ay kaaga baxeen dhibaato inta la egbaad isleedahay way ka soo gaari kartaa qofka intuu safar galay oo lacag bixi sidii marka Axmed inoo sheegay wixii uu rajaynayna la kulmi waayay wallahi waan horta sheekooyin badan baan ku maqlay taas way ku badan tahay dadka Facebook ku xidhan yani waxa ku soo gaadhay adigoo maxaa sheegay saddex qasaar weyn oran karnaa markii hore maxaa sheegay sharaftaada meel kaga dhacday qof wadanka la joogo aan aqoonin badan Facebook ka baratay ayaad maxaa sheegay rumaysatay oo deed aad istiri mustaqbal la qaado second waxaad samaysay waad u qarash garowdo tigir baa wada goosatay baday oo wada diyaar garowday inaad halka ugu tagtid third waxa kugu dhacday tii saddexaad waxa kugu soo dhacday yani qofkii sawirka aad ka haysatay ee aad maxaa sheegay aad ku taqeenay aan hayn boode waxa ka soo baxay qof kale wuxuu sameyn karaa qofkan sawirka lu soo dhigan karaa wuxuu oran karaa waa aniga saasa waka hadhowna maxaa sheegay waxa kugu soo baxay qof aan weligaa filin ka daawan marka waxa qasaaro badan buu leeyahay yani waa wax aad u xun weeyaan xanuun aad u badan weeyaan ayuu leeyahay Axmed adigu sidaad noo sheegtay Facebook in badan baa isticmaalaysay Instagram-ka waxaad tahay big fan maxaa ka soo maray adiga ka shakhsiyan wali Instagram-ka ku horeeyay ka soo tiri waxaad ku haysataa imsa di sheegtay adu dhowrka baa ku jira iska daa dhowrka maxaa ka soo maray Instagram-ka tan ku horeeyay horta runtii Instagram-ku mudeer bu shaqeeyaa horta imika waxaad malayaa sanadkii 2012 dhamaadkiisu soo baxay dadkuna aad ma isticmaali jireen laakiin hadda inta dambe aad baa loo isticmaalaa wax weyn horta ma ahayne waa sawir sheekadiisu maalintii ugu darneed waxa sawir iyo comment ha maalintii ugu darneed meel wax lagu qoran ka raadinayay dhibkii ugu soo garay kaas waa marka maalinta kugu horeysa horta gelmaysiduna waa inaad xogaataa moogtahay markaan is register-gareeyay baan waxaan damcay hadda baalku ma lagu hadla muxuu yahay horta baadi doon markii aan u taag waayay waxba ka waayay baan YouTube ka tagay ilaan imika wax kasta wala fudud information ma kasoo jiray YouTube-ka markaan arkay baan yaabaan ruux waa sawirno waa sideede muddo ma isticmaalino waan iska joojiyay asxaabteedun baa day soo follow gareyso hebel haystay balas dadku way bateen moogtay intii college kula dhiganaysay wixii oo dhan markay qabsadeen ayuunbaa kubadda markaa tagtid baa sawirka lagu soo post gareynaya ama markaa anu intii hore waan sii radkeynay maalintii ugu darneed waxay ahayd un sawiraan meel ka qaaday baan soo geliyay ismaalaan Facebook tagaya mid un baa comment ka qoray moogtay sawirkan ma Facebook ka ilaalin waa meesha ka ilaalinay bade isagu ma ba dhaxdhigay waa television war hada waxa sheekada Facebook tagay u diidana waa ba dhaxyaala bade subaxii baan markaan jeegaray siruma waxaan arkay 40 iyo 50 comment laga qoray meesha moogtay war hada waa sidee meel badkoogeeda kan xagu galay maalintaas ay ugu darneed moogtay ilaa waxaanad garin wax kasi ku galiyaan ma tii la oran jiray moogtay markii damaan ogaad in waxaan daad uga xidhan kartid kaliya ka ilaalinaysid marka maalintaas aniga ugu darneed Facebook iyo Instagram-ka waad noo sheegtay ma jiraan social network kale oo aad u isticmaashay ha maxaa kamid ah WhatsApp-ka iyo Twitter-ka wada Twitter-ka markii high school ku jiraan bilaabay ma fahamtay asxaabta hebel oo soo socda iyo wadadan ku soo jira iyo
saacadii waan leyd baan noqday waa iska leedahay un moogtahay adiga un baa iska samaysanaya moogta waan cadayanayaa iyo marka twitterku waa intaas moogtay isaga information iyo heblaayaan dadka celebrity-gooda follow-garay sidood wixii soo dhigeen noloshooda haddii aad akhridid wani hore kugu sheegana dee wuu kooban yahay qoraalkiisu whatsappkana waa whatsappkana aad baan u isticmaalo dee waxaan laga maarmay buu noqday hadda moogtahay oo qofkii hadalkiiba waxaa ka wanaagsanaaday qoraalkii haddaad iskuul ku jirtay oo lagu soo diraya wax lagu leeyahay saacadaas xaggaa iyo xaggaas iminka dee ururkayga oo kale waxaa loo sameeyey group wargaa loo sameeyey waxaad markasta arkaysaa in warbixintii cid kastaaba ay soo boos garaynayso xaggaas oo laga akhrisanayo marka waxyaabahaas baa aadka igu kalifay inaan u isticmaalo moogtay أنا كوكو سنة قندنا أحمد سلاخة maxaad isleedahay facebooka ama social network noocyada badan ee ka isticmaashid naftaada adiga ahaan uu kugu soo kordhiyay ama maxaa kala soo kulmay ugu weynaa aniga horta sawirkayga la qaatay la igu soo celiyo un baa igu weynaa wax iga soo maraa wax badan waan ka faa'iido waxa jira yani facebook waxa la soo dhigaa wadaadada aad ugu badan hada ma sha Allah oo de yani inta maxaa sheegay waxay soo galiyaan maxaadirooyin waxa la soo galiyaa adigu diinta maxaa sheegay wax lagaga faa'iideysan karo waxa kale oo la soo galiyaa wax barashadii oo kale horta wax badan ba ka faa'iiday ma oran karo waxba kama faa'iidin sida kale whatsapp-ka kale fiber-ka kale iyagana de wixii limit-kii walaalo lagu talagalay hadana dhaafin okay wax dhibaato kama soo gaadhay oo yacni si khaldan aan u isticmaalin marka aniga ilaa hadda alxamdulillah wax dhibaato kama soo gaadhin wayna wanaagsan tahay maxaa sheegay in la soo furayo bahalkan fiber-ka la leeyahay dad baa jira walaalo wadankeena ku nool waxay ahayd inaad kaad soo gadatid ama aad ku soo shubatid hadda kuma soo shubanaysid halkaas aad free ku hadlaysaa aad waxba kaama gelin shaasharkii baanku bas la dooranaysaa dabadna caawa dhan waad ku hadlaysaa fiber-kii marka wax aad wanaagsan weeyaan sulaqa sida markii horeba sheegnay caruur yar yar oo aad u isticmaashaa jirto dhibaato badan kala kulma maxaa waalidiinta aad u sheegaysaa is leedahay caruurtaasi waa lagaga joojin karaa ama caruurta waa lagu caawin karaa because dhibaato ayuu soo jiidaya waalidiinta walaalo ma dhaliilayo waayo maxaa sheegay waalidiinta walaalo way adag yihiin oo way dadaaleen maxaa sheegay si kastaba ay caruurtooda iyagu ay meel wanaagsan geeyaan waxaan oran karaa maxaa sheegay adigoo de ilmihii aad daba taaganta intaas oo leedahay maanta maxaad qabato malcaamad bay geynayaan walaalo sabti iyo xad xitaa ma fadhiistaan iyagoo markaa sidaa u wada ayaa hadana waxaa jirta ilmihii wuxuu samaysanaya facebookii whatsappkii taangadii wixii oo dhan dee kama celin karaysid caruurtii oo dee iyagaaba kaaga horeeya wax walbo waxaa jirta aad ku odhanaysid war waxana waa maxay waxana saasaa la sameeyaa iyagaa markaa kaa macallisanba laakiin waxaan odhanayaa insha allah hooyooyinka caruurta maxaa sheegay dib u eega dabagal badan ku sameeya waxaad eegtaan ilmahan maxaa saaxiib la noqo waxaad samaysaa yani telefoonkiisa eeg isagoona ku tusayn hadana haddii aad la saaxiibto tiraahid maanta maxaad soo samaysay haye bal maxaa kuugu jira halka maxaad daawanaysaa waan hubaa inay maxaa sheegay ay gaari karaan waxay dee ciyaalka ku dhex jiraan axmed sidaas oo kale su-aashaasaan jeclahay inaan ku weydiiyo waalidiinta maxaad usoo jeedinaysaa caruurtooda ay isticmaasho runtii horta anu hal talaan usoo jeedinaya waalidiintoo kaliya nooma soo jeedinaya waxaan usoo jeedinaya qoyska laftigiisaba runtii waxaa laga yaabaa hooyeyna mashquul tahay amba ina aqoon u lahayn waxaa ka socda meesha runtiina meeshan dhowr macalimiin baa saa kordaya macalinka iskuulka marka iskuulkii la tago isagala waa macalin gooniya ma ogtahay oo wax kasta oo affirmationa soo baxa ciyaalka xaggaas iskugu dhiibayaan waa kow ka labaadna waa tvgii iyo wax kastoo soo baxay xaggaasu ka haya ta saddexaadna waxaa sii sahlay internetkii oo dee isagu aan limidba lahayn waalidiinta soomaaliduna waxay u badan yihiin ilmuhu markuu ku dhaha contract soo qaad buu soo qaadayaan internetka ilmihii saasuu freega ku helay hase haatee hooyadii wax isleedoon ilmaha ka farxi laakiin waxaan odhan lahaa dadka waxaa jira iminka aniga oo kale caruur badan baa walaalanahay gurigii la jooga runtii waan ogahay saaxiib baan la ahay wax kasta ay soo boos gareynayaan wax kasta ay sameynayaanna xaggaasaan kala socdaa waa ujeedada keliya teen raba inaan ka caawiyo because waxaa laga yaabaa hooyada inayna khibrad u lahayn waxan marka anigii laftigayga inaan mas-uuliyad inay saaran tahay oo isaguna beri hadduu weynaado kuwa ka yaryar un mas-uuliyaddii u korayso ayaa fiican dadka walaalaha waxaan leeyahay war bal waalidkiina caawiya oo ilmihii idinku la saaxiiba oo ogaada bal waxaan soo kordhinayo ilmuhu soo kordhinayo ilmihii isagoon lagu qaydin ha laga dhaadhiciyo wixiinu khaldan yahay taasi waa meel kulleyba dadaalku iminka waa iska arkaysaa hawshan way fara badan tahay ilmihii dhaqan kalunbuu mar kasta daba cararaya
dadka ugu hagaagsan ma wanahay Soomaali harkasa hooyinta sacar wado madrasad ku shubaysa ilaahay jisaayiga ha siiye runtii waalidka hala caawiyo ayaan la dadka waaweyn ee guriga jooga haddii noqdaan walaalaha haddii noqdaan iyo ilmaadeerada haddii noqdaan ilmihii hala caawiyo oo haddii ilmihii loo diidi kari waayo macnaha hala siiyo on advice oo waxaas soo waalidka la socodsiiyo ilmo waxaas sameeyo la soco si mobilka waa wax dhahoydii marka ka xidho mobilka waxaad arkaysaa inuu ilmihii lala socdo oo ogaanaya limit buu ku joogayaa markaas marka waa in haddii waalidkii waxba qaban kari waayo waa in dadkii kala caawiyaan yaa adeegsan because hadduu ilmuhu xumaado hal qoyska ma xumaanin waayo dadkii ka war xumaaday bulshada oo dhan ka xumaaday marka dadka waxaan leeyahay hal is caawiyo haddii la is caawiyo wax badan baa hagaagaya صح أنا سلاخة haddaan kusoo noqono dadka relation ka sameeyay calaaqadka ama iyagoon isbaran is arkin halka iska barta is jeclaadaan ama inay isguursadaan doonay mustaqbalkooda sameystaan kuwa iyagu imika wayna daawanayaan maxaad kuwa odhan lahayd kuwa waxaan ka odhan lahaa mustaqbalku wallahi wax fudud maaha yacni markaad reer sameynaysid waa wax aad u badan inaad ogaatid oo maxaa sheegay aad ka fiirsatid waxaad sameynaysid hadday maanta maxaa sheegay qof aad ka baratay Facebook ama Tango ama WhatsApp whatever meel kasta aad ka baratay aad tiraahid mustaqbal baan kula sameysanayaa reer baan kula yeelanaya waa wax aad adag aniga waxaan oran lahaa qofku maxaa sheegay ninku horta waaba nin oo shaqadiisa ma aha waxba sawi intuu doono guursan karaa laakiin inantii waxaan leeyahay mustaqbalkaaga ha ku ciyaarin walaalo inanimadu waa shay qaali waxaan ku oran lahaa qofkan aad baranaysid ama guursanaysid ama maxaa sheegay aad doonaysid inaad family la noqotid iska hubso hana noqdo mid aad aragtid oo maxaa sheegay aragtidaada ku qanacday Axmed sidaad u aragtaa adiga dadkan xiriirka ka sameynaya ugu dambeyntiina maxaad leedahay wada runtii inaan xaasid noqdo maraba moogtahay way aragtidaada uga diibaysa wax kale maaha runtii horta waxaan waa calaf waa wax inaga sareeyo weeyaan oo ilaahay qoray amba duul amba hawada gal wixii ku qoran sina kuma seegaysid laakiin hal baan ku soo gabagabeynaya dadka Facebooka isku jeclaada runtii bal markay kulmaan waqti haysiiyaan ama WhatsApp ama wixii doonaan ha ahaadaane yaa bal horta guur lagu degdegine waqti hal la siiyo sidoo de xiriirku hadhow adkaado oo dadkii de wax yar maaha mar dadka hadii iskuursadaan horta inantii de magaceena nimaduna waa hadlaysaa way hadlaysaa de oo mar hadii de kala tagaan ninkiina sana waa la midun oo de waa soo guursadayo iyana waa camal inuu xiriir adag ka samaysan karo laba qof oo isarkiina chat gareynayo hadii waqti siiyaan markay kulmaan intaan guur kala tagin hadii dadku waqti siiyaan dadku waa bilaadan oo de hadii qofka ka helay iska heleen iyo waqtigiisa siiyeen ee sheekaysteen oo de real life dib ugu soo noqdeen ka baxaan Facebook marka waxaan malayaa in de la isla dhili kareyn karayo noloshii waa dan normal caadi ah oo dad kulmay oo de imsa de la kaxaynaya imiko baag home inta la geeyo loo soo gamoon gabadhe xagga markan madana geesan bal soo galay war waa sidee marka waa taas oo kale yaan waxaan leeyahay bal waqti hal la siiyo oo hal is fahmo ninka dhaqankiisa la fahmo kallada xagga marka la yimaad geesa la soo baxaya waxa ka wada de inantii waxa laga yaabaa in ay dhaqankeena caadiga wadato inankiina de waa bad iska arkaysayo waa imika de noloshiina aan ku noolnahay marka waxa laga yaabaa in ay gabadhii khalad balahayn laakiin ismandaafkay meesha markasta imanaya de ma fahamtay because waxa laga yaabaa gabadhii inuu waqtiba garneyn inaan kuna fiisan jabsiya una gabadhii iska yaryasay aduu doono de wuxuu yar arkayaa de ma garanaysaa waxaan jirin ba aduu doono arkayaa de islee xalimadan waxaas kelmadii la isticmaali jiray de ayuunbu yadna tan geesaha soo baxaysa ninkan xagu ku maqooriyay gig waa bal isla dhax xarka sheekada bariga dhax maraysa xalimi farxas gar haade markaas tan da sheekadii xalima maaldhow waxaan arkay hablo distinct child badilayo Facebook soo galayo farx ay moogtay oo le waa soogtahay alla dib badan ay tiri uu soo yahay marka heeski dhinaaba isaga ku saabsanayd ma fahanteen heestii way badileen isaga ka dhigeen ma qos habeenkii ugu darneed baa waa yaaba waxaan sameeyay ma biska aysan fanaan caadi noqolayeen be marka qof ayagu garanayaan gaar ha dad ku socotay uu soo yahay baa la leeyahay moogtay marka bal waqtiga wanaagsan dadku in waqtiga siiyaan markasta waqti la siiyo natiijo ka soo baxda moogtay oo dadku tabiicadiisu fahmayaan baad ku galaysaa ama waad kaga baxaysaa moogtay waxaad arkaysaa qof wadankii la geeyay markiiba waa loo meherinayaa gabadhii ma uga dhaqankiisa doon sigaar ku cabaa shaqaad ku cunaa waa wadaad baa lagu yidhi markii dambe arkaysaa isagoo shantii habeenimo ku qaraacay guriga ninka badan fidhaa noqonaysa
marka bal dadku waqti haysasiyaan oo runta wax ka wanaagsan ma jiro runta marka la isku sheego ay dadku dee soo bandhigo runtiisa qofka kugu galay ama kuma galay waa labadaas un moogtay wax weyn ma gabadha qoona sabab kugu ogolay aan kugu galay ama kuma ogolay marka haddii u diido mid kale helaya oo ku ogol noloshiisii ma fahamtay xiriirkiina aad keenaysaa marka ma wacna waqtigiisa siiyanayo gaar degdeg mahadsan tahay labadiinuba aad iyo aad ay mahadsantiin sida wanaagsan ee barnaamijka noogala qayb qaadateen insha Allah ma malaynayo inaan social network hal barnaamij ku soo koobi karno laakiin waxaan filayaa in labadiina iyo dhalinyaro kale badan ba aan soo keen doono because dadku way kala aragti duwan yihiin qof walba wuxuu qabaa intaan adduunka hadasheen ka duwan inay inagu soo biirtaa dhigta magacyada beenta qaar taageerayna inoo yimaadaan baa dhici karta okay insha Allah barnaamijka la ku kulmi doono aad iyo aad mahadsantiin ma taaduna waa tahay daawadayaal barnaamijkeeni arrimaha bulshada oo kaga hadlaynay social network dhibaatada uu leeyahay iyo khasaaraha uu leeyahay iyo wali faa'iidada uu leeyahay iyo wuxuu nagu soo kordhiyayba waa naga inta aniga iyo martidayda sharafta leh iyo Jamaal Xasan oo qaybta farsamada noo fadhiyay maxay idinkaga tageynaa sida ay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh